bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba waa joogtaan kusoo dhowaada aragti cusub news oo si toosa idinkaga imaanaya xaruntiisa magaalada Oslo. Dowladda waddanka Ruushka ayaa ku dhawaaqday inay xiriirka u jartay isbahaysiga NATO. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov oo la hadlay warbaahinta Reuters ayaa sheegay in tani jawaab u tahay kadib markii isbahaysiga NATO eryeen 8 ka mid ah diblomaasiyiinta Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa sidoo kale sheegay in aqoonsiga ay kala laaban doonaan shaqaalaha NATO ee ku sugan caasimadda dalkaasi ee Moscow. NATO ayaa weli wax war ah ka soo saarin go'aanka Ruushka ee ah inay xiriirka u jareen. Arrintan ayaa imaaneysa xilli isbuuc ka hor xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg uu warbaahinta u sheegay in xiriirka ka dhexeeya NATO iyo Ruushka uu marayo halkii ugu hooseysay kadib dagaalkii adduunka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ku dhawaaqay imaatinkiisa waddanka Norway gaar ahaan magaalada Tromsø isagoo kaga qaybgalaya shir heer wasiir ah oo ay yeelan doonaan golaha iskaashiga isagoo kulan la qaadan doona wasiiradda arrimaha dibadda cusub ee waddanka Norway. Booliiska waddanka Norway ayaa markii ugu horeysay ka hadlay muuqaal saacadihii ugu dambeysay lagu faafiyay baraha bulshada. Saraakiil ka tirsan booliiska ayaa sheegay in ninka la sheegay in isaga oo qori wata galay masjid ku yaala magaalada Moos aysan ahayn mid sax ah. Waxay tilmaameen in ninkaasi uusan wadan wax hub ah isla markaana lagu aqoon waxyaabo la xiriira falal cunsurnimo. Balse booliiska waxay sheegeen in ay baari doonaan sababaha uu halkaasi u tagay. Ugu dambeeyay ayaa muuqaalkan la isku dhaafsanayay baraha bulshada waxaana dadka qaar ay ciwaan uga dhigayeen in ninka hubeysan uu doonayay in uu weeraro dadka masjidka ku sugnaa. Warbixino cusub ayaa ka soo baxaya halka ay mareen xirmooyinka shidaalka kadib go'aankii maxkamadeed ee ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. Macluumaadka ay baahisay idaacadda VOA ayaa waxa ay ku sheegtay in ilo lagu kalsoon yahay ay sheegayaan in kadib xadiinta ay maxkamadda caalamiga ee garsoorka ICJ ka sameysay xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya ay inta badan xirmooyinka la tuhunsan yahay in ay ku jiraan shidaalka iyo kheyraadka kale ay marayaan dhinaca Soomaaliya xuduud cusub. Qabiir arrimaha badda oo darsay xukunka maxkamadda isla markaana codsaday in aan magaciisa la sheegin arrimahan oo xasaasi ah dartood ayaa VOA-da u sheegay in mid ka mid ah 7 xirmo ay martay dhinaca Kenya, 4 kalena ay martay Soomaaliya, halka 2 kalena ay xuduudu dhex marayso ay labada dhinac u kala qaybsameen. Inkastoo dhulka ay ku fadhiyaan xirmooyinkaasi badankiisu marayo dhinaca Soomaaliya. Qabiirkaas waxa uu sheegay in xirmada dhinaca bari uga xigto oo astaanteedu ay tahay Al-26 ay martay dhinaca Kenya halka qayb ka mid ah xirmooyinka Al-23 iyo Al-24 ay sidoo kale ay mareen dhinaca iyo dowladda Kenya. Xirmooyinka soo haray ee kala ah Al-5, Al-13, Al-21, Al-22 iyo inta badan xirmooyinka Al-23 iyo Al-24 ay mareen dhinaca Soomaaliya sida uu qabiirku sheegay. Qabiirkaas waxa uu xaqiijiyay in xirmada ay khubaradu baddu aaminsan yihiin in ay ugu kheyraad badan tahay ee martay dhinaca Soomaaliya. Dowladda Kenya waxay sheegtay in aysan marnaba aqbalin go'aanka maxkamadda caalamiga ee ICJ. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa lagu sheegay sidoo kale in Kenya ay doonayso in qaab nabadeed iyo wadaxaajood lagu xaliyo arrinta iyadoo maraysa urur goboleedka Midowga Afrika. Ugu dambeynna gudoomiyaha midowga musharaxiinta ahna madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu hambaliyay maalinta dhalashada nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Madaxweyne Sheekh Shariif oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda muslimiinta ugu hambaliyay dhalashada nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبك الصومالي ميل جوجانبا waxaan leenahay mawlid wanaagsan
sidaas oo kale dadka muslimiinta meel ay joogaanba bishaan waa bishii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay uu mataqaana adduunka keenay waa bil dadka muslimiinta aad iyo aad ugu weyn maxaa yeelay nabigoodii sala allahu calayhi wasalam risaalada loogu soo dhiibaa lagu dhalay marka waa bil runtii farxad iyo sharaf gaara u leh dadka muslimiinta meelay joogaan marka waa ugu hambaleynaynaa dadka Soomaaliyeed meelay joogaan iyo guud ahaanba dadka muslimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa dembi dhaaf iyo naxariis iyo mataqaana ummadda Soomaaliyeed waxa ay haminayso horumar iyo nabad iyo cadaalad ilaahay inuu gaarsiiyo aad iyo aad u mahadsantiin guud ahaana daawadayaal intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa caawa ayaa aragto cusub tan iyo intaan dib u kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.